haweenka ee maamul goboleedka Jubbaland oo markaasi kulan ku yeeshay magaalada Kismaayo ayaa waxay taageerayeen habka loo soo xulayo xildhibaanada maamul goboleedkaas Jubbaland ee markaasi ay ku qabteen magaalada Kismaayo. Mas'uud Cabdullaahi Aadan ayaa warkan ka soo diray Kismaayo. waxaa ka socda ololaha doorashada xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland kuwaas oo loo ballansan yahay in la soo xulo bisha Juun inta ka hartay iyo bisha Juulaay ee soo socota. ururada haweenka Jubbaland ee gobolada Jubbada Hoose iyo gobolka Gado oo maanta iskugu imaaday magaalada Kismaayo ayaa taageeray nidaamka saddexda qof lagu soo xulayo xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland kuwaas oo madaxweynuhu uu mid ka dooran doono. inkastoo musharaxiinta Jubbaland iyo qaar ka mid ah beelaha dega Jubbaland ay ka soo horjeesteen nidaamka saddexda qof, haddana waxaa taageersan dad badan oo ay ka mid yihiin ururada haweenka iyo qaar ka mid ah salaadiinta magaalada Kismaayo. qaar ka mid ah haweenka gobolka Gado iyo kuwa magaalada Kismaayo oo iskugu imaaday kulankan ayaa ka hadlay, waxayna taageero u muujiyeen madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ayagoo taageeray nidaamka lagu soo xulayo xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland. waxaan leenahay waxaan taageersanahay oon rabnaa inaan halkan aad naga dhagaysataan saddexda qof baan taageersanahay. waxaan rabnaa odayaasha dhaqanka ee walaalaheena ah, odayaasheena ah, waalidiinteena ah, mar kastaba waxna isku nahay. waxaan rabnaa inaad keentaan saddex qof oo mid ay gabar tahay. qodobkaasaan kulligeen isku wada raacsanahay oo taageersanahay. annagu haddaan nahay reer Jubbaland doorashaan diyaar u nahay, doorashada aan diyaarka u nahay waxaan codsanaynaa musharaxiinta imaanayso oo madaxweynenimada xulayso laba qodob baan ku dardaarminaynaa. qodobka koobaad haddayna nabad wadin inayna daayaan. annagu ma rabno qori afkiis, annagu ma rabno wiil dhinto, annagu ma rabno qalqaliso. waxaan u baahannahay doorasho cadaalad ah, dastuurka Jubbaland u yaalla cidii aan soo marin inayna daysaan codsanaynaa. inay dastuurka Jubbaland u yaallo cidii aan soo marinna inayna daysaan codsanaynaa. Xaliimo Faarax Godane oo ah gudoomiyaha ururka SWSO ayaa sheegtay in haweenka Jubbaland ay ku howlan yihiin sida ay siyaasadda uga soo dhex muuqan lahaayeen, isla markaana loo baahan yahay in nabadda iyo horumarka laga shaqeeyo. gabdhaha Soomaaliyeed ee reer Jubbaland waxay meel iska dhigeen colaadii, waxay dhaxda u xirteen nabadii. waxaa maanta Ilaahay mahadiis ah in aan si nabad ah aan ugu taageerayno hoolkan dareenkanaga iyo waxa ku jira iyo waxa aan taageersanahay inaan ugu dareemay. sababtoo ah haddaysan nabadi jirteen intaanaan isu nimaadneen magaalada dacaladeedaan ka nimid, ilmihii dugsi bay jiraan, waxbarashay jiraan. haddeerna waxaan fadhinaa halkan, waxaan ka tashanaynaa aayaha annaga aayaheenaan ka tashanaynaa iyo aayaha Jubbaland. nabadda aan haysanay ku timid. guddiga doorashooyinka Jubbaland ayaa dhawaan la kulmay odayaasha dhaqanka ee Jubbaland ayagoo kala hadlay siday u arkaan nidaamka saddexda qof ee u sharaxan xildhibaannimada kaas oo madaxweynuhu uu mid kala soo baxayo. Mas'uud Cabdullaahi Aadan, TV Universal, magaalada Kismaayo. halka dawladda wadaan nagala socotaana waa telefishinka Universal. warkuna wuxuu kaga imaanayaa stuudiyihiisa ku yaala magaalada London. markab shidaalka qaada oo laga leeyahay dalka Norway ayaa la sheegay in lagu weeraray maanta gacanka Cumaan ee u dhaxeeya dalalka Imaaraadka Carabta iyo dalkaasi Iiraan. hay-adda ilaalada badda ee Norway ayaa sheegtay in saddex qarax lagu maqlay markabka balse aysan cidna ku dhaawacmin oo ay badqabaan. bayaan ka soo baxay hay-adaha aan lagu sheegin in sidoo kale doon lagu magacaabo Courageous lagu weeraray isla aagaasi. dowladda Iiraan ayaa sheegtay inay ka walacsan tahay weeraradaasi la sheegay in maraakiibta lagu qaaday, isagoo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iiraan uu Twitterkiisa ku soo qoray in shilkan uu dhacay xilli dalkiisa oo booqasho ku jooga ra'iisul wasaaraha dalka Japan oo markaas u jooga halkaasi sidii markaas wadahadal loola samayn lahaa Iiraan iyo dalkaasi Mareykanka. dhinaca kale, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dalkaasi Iiraan ee IRNA ayaa sheegtay in ciidamada badda Iiraan ay soo badbaadiyeen 44 qof oo ah shaqaalaha labada markab oo saliidda qaada oo dab uu ku kacay kadib dhacdo ka qabsatay gacanka Cumaan. 44 badbaax oo saarnaa laba markab oo shisheeye ayaa waxaa badda ka soo badbaadiyey ciidamada badda ee gobolka Hormuzgan, waxaana la geeyey dekedda Bandar Esgaas sida wakaaladda wararka ee IRNA ay ka soo xigatay ilo wareedyo. mid ka mid ah maraakiibta oo sita calanka jasiiradda Marshall Island ayaa kiimikada shidaalka lagu daro ee ethanol
waxa uu ka soo qaaday dalka qatar waxaana u socday dalkaasi taiwan waxaana saarnaa ilaa iyo 23 shaqaale ah. markab kale oo ay saarnaayeen 21 shaqaale ayaa sita calanka dalka Panama wuxuuna ka soo tegay dalka Sacuudi Arabiya wuxuuna u socday dalkaasi Singapore. ilaa iyo hadda lama yaqaan waxa sababay dabka ka kacay maraakiibtaasi balse waxaa loo malaynayaa in la weeraray. dhacdadan ayaa imaanaysa bil kadib markii 4 markab oo wada shidaal lagu weeraray agagaarka xeebaha badda ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta. inta daawadan waxaan kusoo gabagabaynaynaa warkeenu idinkaga imaanaya telefishinka Universal Studios ku yaala magaalada London. anigoo tolwaayna waan idinla socodsiinayay intaan warkan warka xiga haddii Allah wadal ogolaado aan daawada mar kale ku kulmi doona anagu isku duuban waxaan idin leenahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.